Hello, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنكي عالم live from Indonesia. ما أنت وحرب هالكن إن إذا شرحوا سيدا وقف فضد وقولنا تقصها بدن أو أي إندونيسيان كويسو بورسلان. أيام ربعنا يدو واحد إن شاء الله. بورك ولا سوفر ذي بورك عادي هذا يلوف في إندونيسيا. بورك بقول كي بس ديتن أم بقول كي بس عشان وعندي كراوي على سوبر إندونيسيا ودتكو رجع دمر كي كل مان أونلاين يا وحجروا وحيابا إنستغرام يا أيا أنت بدن أيا وحجروا برنامج بدن أو كوسابسن ناقة بورك الدوني قبلها بورك الدوني يرجع بورك الدوني هالكاسي سوره ده information كليان كنا ربعمو نمبر كود واتساب دن دايركت هالكاس أي سكال حريران دن تعرف كأيا باللامة تعرف كم ركوب باللامة إن شاء الله أدو تروقوا مدو سعدو everything okay دينو خطر هورا لسه بورسلا مركا بوركي ولا سوفو ذي بوركي ودم ولا فوذي الحمد لله وعوادتكم ددوي جيران حنا كل ما فيس تو فيس كل ما لكن بدنا ددكم waxay ku kulmaan barta online ka especially YouTube especially Instagram ayaa lagu kulmaa insha Allah waxa jira website badan oo Instagram ku yaala oo habeeraatay wuxuu ahaa macluumaadka dhammaan ku reebay sida ugu dhaqsidaada ayaan ugu dhaqsi badan soo guurtay Indonesia meherka xaqiisa meherku waa labada qof waxay ku jeclaan laakiin meherka balkan waxay u baahan tahay dumarku kuma xujayaan meher badan ragga waxay ku xujayaan sajaayad kitaab al-Quraanka iyo qofku wuxuu awoodo ama hal faranto yar ama lacag adiga dhan $50 ya ama $100 qofku wuxuu qorto meherku halkan wax qiimo ah bay raatay macnaha ay dumarku ku xijiyaan rag ma jiraan dadku rag baa ugu guursada badana $500 ayaa wax dhan guurka dhan meherka guurka wax dhan ku dhaca rag kont adiga maxaa $1,000 ku guurso way jiraan $2,000 adiga sida aad baa orto guurku dhigato laakiin meherku wadankan dumarka ragga waxba kuma xijiyaan waxaan waxay siinaysaa ay ku filan bis badana rag waxa lagu guursa halkan badana isku guursadaan kitaabka al-Quraanka sajaayad iyo mukanna dhar ay ku dukadaan muxuu dumarka inta baa lagu guursadaa marka guurka waa la fudeeyay badana waxaa loo yeelay in ay sinada yaraato oo nin walba oo rag ah oo dhalinyaro oo awoodo inuu guursado waayo rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri hadii guurka la adkeeyo ya waxa imaanaysa oo badanaysa sinada ayaa badanaysa marka waa in guurka siisaba la fududeeyaa marka Indoneesiyaanka alxamdulillah inkastoo dumarku halkaan laba adiga boqolkii ay 10 mar ay ku jibaarmaan ay dumarku aad u badiyeen haddana waxa way guurkuna aad ayuu badan yahay marka guurka insha Allah Indonesia waxa way habeeraatay aad buu saalan yahay waana nooca doonto alxamdulillah gabadha hadaa ka hesho hadaad ka helin waxa way taaruf ay leeyahay marka waa loo isbaansanaya sukaansi waxa waa taaruf ay leeyahay taarufku waxa waa in la isbarto laba qof isbartaan ay dhan walba ka sheekaystaan markay haday iska helaan jeclaadaan kadib muxuu meerka ka wada hadlaan kadibna waligooda la hadlaan ama aabahood haduu soo joogina walaalkeed haduu joogina abtigeed ama adeeradii insha Allah marguurka waa la fuday laakiin dadku waxay ku kulmaan 99% baraha muxuu oo macnaha Instagram ka ayaa badan inta lagu kulmaa waxa jiro bara badan oo khusuus u ah muxuu guurka oo khusuus ah guurka oo la yiraahdo taaruf inta badan waxay ku yaaleen muxuu barta la yiraahdo Instagram Facebook iyaguna way jiraan Instagram ka ayaa khusuus ku waxa meel walba ay joogaan Indonesia halkaas qofka sawirkaada iyo macluumaadkaada iyo gabadha aad doonayso inta dhir ay leegtahay intay waxirtaalka ku qoraysa ayadoo sidoo u qoraysa kadibna waxa ku reebaysaa numberkaada WhatsApp-ka bartaasna waa free oo wax lacag ah beeraad bixinaysa male waxa loogu talagalay in dadku ay isku kulmaan si ay isku guursadaan oo ay wax walba loo fuday waayo guurka hadii la adkeeyo sida hore u sheegay waxa way macsida iyo zinada ayaa badanaysa ya inkastoo Indonesia ay dadka qadiyeen ummadda muslimiin hadda waxa way waxyaabo badan oo iska aan dhaqanka islaamka raacsaneen way ku dhamaan sida ummadaha islaamka oo dhanba laakiin guurku halkan aad iyo aad u yahay qarashkiisa marka la isguursanayo
oo haba yaraatee wax dhibaataa guurka ma leh waayo dumarkuna aad bay u badan yihiin ragguna way ka yar yihiin marka halkii rag waxaa ku soo aadaysa waraan konton naagood Indonesia marka alxamdulillah waxaa waaye dumarkooda Indonesiaanka macnaha raggan u sheegaya macnaha gudniinkii fircooniga laguma sameeyo ya gudniinkii fircooniga laguma sameeyo gabadha waxaa lagu sameeyaa sida sunnada caadiga ayaa loo sameeyaa marka taana la socda insha Allah taana waxay keenaysaa dumarku inay habad u hayaan rag ya inay jacayl u hayaan waayo qofka dumarka waxa la rabaa inay jacayl u hayso laakiin anaga gabdhaheena waxa dhibaato ku dhacday fircooniga ku sameeynay ninka ragga dhanba way dhibayaaba marka insha Allah waxaas waxa maleynaa Soomaali inay ka ilbaxday waa fircoon u baa ku dhaqmi jamaana waxa bayraad ku dhaqmi jiraan gabdhaha waxa la rabaa in Suleymaane in fircoon lagu sameeyo waa xaraan diinta islaamka waxa kaloo jirta oo halkaan aan idin sheegi lahaa insha Allah guurka Indonesia labada waalid markay gabadha maalinta la guursado ayaa waxay leeyihiin maanta laga bilaabo waxa ka mas'uul oo odagaada ya jannadaada asiga ayay ku jirtaa lugihiisa ee ka waxa jannadiisa ka raadso annaga waxa bayraato aan kaaga baahanahay maanta male sida waxa waalidiinta Soomaaliya ay gabadha ay rabaan inay u iibsadaan ya way iibsadaan ee gabadha guurkeeda ay u jeedaan inay gabadhu lacag u keento ay u shaqayso marka subhanallah taana waxay keentay in guurkeeni ya Soomaalida oo boqolkiiba 90 oo u batay furiin dhibaatana waxay ka timid odagii habartii gabadha dhalay iyo reerkeeda fahmno Indonesiaanku gabadha haday rich nin guursado haday baqay ma laga yaabo aabeed iyo hooyadeed iyo walaalkeeda inay ku soo saqajaamaan ama yiraahdeen wax nasiib way soo boqdaan waa dad isjecel habarta way u tagaan hooyada way u tagaan reerarku waa loo tagaa waxaana sodo waa loo tagaa laakiin ma laga yaabo in wax isi maxaa haystaa afaaraha familka ninka naagta ay galaan waa xaraan bay ka tahay mamnuuc dad yaqaan habeeraad ma taana waxay keenaysaa labada qof oo isjecel ninka iyo dumarka ah inay si fiican u dhaqmaan carruurtoodana ay u korsadaan boqolkiiba 90 guurka Soomaalida waxa breakdown ku dhigay oo baabiye waxa waaye odagii habartii dhalay iyo walaalkii iyo walaashi way gabadhii habeeraatay lama siinayo 24 hours waxa lagu hayaa guhaadin ya iyo canaadin ya iyo wax weydiis marka waxa waaye dib ha isku noqon Soomaali insha Allah waxa waaye finnada dhacdana waxay galaysaa oo kaliya hooyadii aabihii dhal ma galayso waxay galaysaa carruurta u tahay reerka u tahay insha Allah marka sidaa daraadeed waxa waaye guurka Indonesia waa dad aad iyo aad insha Allah aad iyo aad inshaAllah waxay insha Allah video badan aan ka soo sameey doona dad badan baan ka soo codsaday xagga guurka xagga dhaqankoodana waa dhan aad u wanaagsan. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.